gabdhihii baan weydiiyey oo waxaa lay warsaday anigoo isjajaminayo foorfooriyo kolkaasaa la yidhi in adeer magacaaga noo sheeg kolkaasaan idhi badanaaba hablaha uma baadha sirtayda because haddii aan la hadlo way caashaqaya bal laakiin adiga una boona fartuumo waan iskaa baraya waxaan ahay nin balaayo ah 100 ninoo warma haysta biyaha u kaban maaya baan berigii carabtu yuhuudda ay burbursheenna anaa keenay balaynkii baarleef ay ku jabsheen weerarkii barqadiina baylood baan ka ah halkii aan ka matali jiray waxaa looran jiray bayloodkii qaranka iyo barihii dunida waxaan ahaa nin biyoola ah gabdhahaana waxaan iskugu sheegi jiray nin baylooda ayaan iskugu sheegi jiray faataadhugta markaa aan samaynaya dabaqad sare ayay gaadhay kolkaa aan ku soo jiidanaya macnahaygu ahaa inaan gabdhuhu uun ku soo xerogeliyo waanigii gabadha intaan gabadha ay weydiisaa tiri war bal ii warrane aan idhi horta in dooraba dalka waan ka maqnaay oo dibadahaasaan marayay dawladaha soo korayana lacag baan dayminaya baan qaarna waaban u diido way dabeecad xuyinoo mid hore ay dafireen ha yeeshee waxoogaa daana aba ay soo gaadhay doraad daruuraha meel ka sarraysa daara aan ku lahay oo digaaga aan ku rabeeyo ayaa dayax gacmeed iga jeedhay baan darawalkii baan koodka la fuulay kiisaskii ugu dambeeyey lambarkii u daraabaa dushaan mid ka saaray daldalaad baa lagu qaaday baan turida weyd maba jooga kaasi uu maqan yahay ha yeeshee haddaan soo degay oo hudheel weyn oo dalxiisku daawasho u tagaan oo daanta aan ka dhisaayo shaqaalihiisii ayaan daydayaa diritoorad maad ka ahaan isla gabadhaasi kolkaan kelmaddaa su'aalay waxay aragtay inay beenta tani mid aad u ballaaran ay tahay way fahamtay markiiba gabadha ilbaxana way ahayd markaasay tiri maya anigu uma baahan haddaa iska soco baan idhi kuwa u baahan baan heli doonaa macnaha kolkaa waxaan uga jeedaa kuwa faataadhugta iga rumaysta way iska imanayaani iska teg way iga tegto markaa gabdho kale ayaan kolkaa dariiqa isku yarjeen gabdhihii baan weydiiyey oo waxaa lay warsaday anigoo isjajaminayo foorfooriyo kolkaasaa la yidhi in adeer magacaaga noo sheeg kolkaasaan idhi badanaaba hablaha uma baadha sirtayda because haddii aan la hadlo way caashaqaya bal laakiin adiga una boona fartuumo waan iskaa baraya waxaan ahay nin balaayo ah 100 ninoo warma haysta biyaha u kaban maaya baan berigii carabtu yuhuudda ay burbursheenna anaa keenay balaynkii baarleef ay ku jabsheen weerarkii barqadiina baylood baan ka ah waxaa aad moodi bidaartana ceel baasiinoon xukumaaya baa bumbe ay ku rideen haddii ay bug jiraa dunida ee babalaashay way basbeeri lahayda anigaa ka badbaadshay oo ku biimeeyay naftayda oo baaruuddii qarxanaysa iga leeftay bartaabaan idhi can you see my hate ma aragtaa kolkaasay tidhi yes waan idhi absolutely very good waxaan idhi bayruud baan degana jarmalkaa barigaa booqasho aan ku marayay shalay goor barqinkii aan ka soo duulay barliin boqorka feerka adduunka iyo cali kalay baan ballanay oo bisha tanaan ciyaaraynaa baan idhi aw guriyo markaasay tidhi maadaa cali kalay la ciyaaraya waxaan idhi dawladday bariday oo tidhi barihiisii ha la raadsho ninkii wax baray cali kalay ha la raadiyo ninkaan unbaa la ciyaari kare marka anigaa wax baray baan idhi saasaanu la ciyaaraya feerkaasina waktigaasuu dhici doona gabdhihii baa weydiiyo waxaa la yidhi dee haddii aad nin taariikhdaala tahay oo caynkaasa maxaa buruudkaaga iyo guusha bustaha hoos geliyey waxaan idhi taariikhdaydii baa badatay oo baashash qaadan la waayay baan wax lagu qora alaankaa lalayahay dharkana waa ka mamnuuc laguma qori karo sababtoo ah dadku wuxuu xidha heli maayo markaasay tidhi haddaa maxaa b b c du kuu sheegi weyday iga raalli ahow baani wariyihii baa ka bukooday markii caynkaa aan idhi ayaan idhi waad casuuman tihiin labadiinuba goormaadna casuuntay baa layidhi waxaan idhi de waxaan idin casuumay berrito tomorrow ayaan idin casuumay jabkuba halkuu ka dhici doono weeyaan casuumadaba ha u qaadin lahayda casuumaddaa iyo tanagii baa isku beegmi doona gabdhihii waxaan idhi waan idin casuumay beritaan idin casuumay waa hagaag baladho casuumaddii waa layga aqbalay waa sidaan sheegaya aanu lahaa kuwa kolleyba iga yeela un baan arki doonaa hablaha kale iska taga intii isku kaa xariifisa marka maalintii casuumadda aan ballanay ayaa xaafadii aan gabdhaha ku casuumay mooyaane xaafadaan biyaha ka dhaaminayay ayay iyaguna u guureen ilaa de waa dadka aan deegaan guri meesha ku lahayne guriga xaafadii bayba guri ka kiraysteen anigoo biyihii la wareegaya tanagii oo biyayaa shuban ayuunba iyaga yidhaahdeen nawaaka biyooluhu yeedhayeen biyoolaha inooga shub gabdhihii aan casuumay unbaa tiri waar biyoolow tanagii baan kula dhaqaaqay ilaa kama filan halkani kolkaan markuu yidhi inaan gabdhihii wejigooda gartayna tanagii baa iga dhacay
faruhu igooye tanagii waan foorarsaday waa markay gabadhu tidhi allah alla hortii waa bayloodkii qaranka kan biyaha shubaya markaasay tii kalena tidhi naama barihii dunida ah kan biyaha shubayo ariyaa daarahaagii badnaa ma beed bay kaa noqdeen maxalaa basku jiro miyay kaa burbureen bay tihi waan calooladaygoo weli halkii baan taagnahay waxaan idhi shaqada way badan tahay biyoolaa loo rogay maanta dee biyoolaha lama diidana maxaad beenta ka doontay baa layihi dee ma been baan idiin sheegay baan idhi brofesor cilmi lahoo cudurka baadhi yaqaanaan bil fasaxa aan ka qaatay 2 bilood biyo dhaami jidhkaagaa u bartay hawlahaa badane buu warkiisi ku bayaansho naftaydaan baananayaa baan idhi sababta aan biyaha u dhaaminaya waa caynkaa baan idhi jinistig wax la yidhaa ayuun baan ka dhigaya laakiin in u baahan may casuumadusa halkii ayay ka socotaa biyaba igama soo gelin lacagiba igama soo gelin maxaan ku casuumaa arrintii weli waan iska ejinaya halkii baan ku fashilmay oo lagu ogaaday inaan waxaanan dhurayaay beenun tahay oo marka hore waa anigan u sheegay bilalahan arkaysana ha u qaadan bilaasha waa baawar aan dadka dheerahay hablaha tusay marka kifaaxi caynkaasa aan isla soo marray aakhirataankiina dee beeni raad malaa la yidhi anun bay ila gaabiso aniyo tanagayguun baa la isku qabtay